deegaankan taliyaha qaybta taliyaha saldhigga maayarada degmooyinka gobolka taliyaha ayjeesha dhammaan salaadiinta iyo cuqaasha bahda saxaafadda ganacsatada madaxda aqoonyahanka haweenka kala duwan ee ururada bulshada iyo madaxda ururada dhalinyarta u sarreysa sooyo dhammaantiin waxay idinku salaamayaan salaada islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii laba isku mid qabadoo dadadu aad iyo aad u jecel lahay oo agteeda ku qiimowey karaamiyo sharaf badan aan ugu hayno u yimiday saaka inayna sagootiyaan nala soo dhoweeyaan aniga iyo wasiirka wasaaradda warshadaha ka yimiday halka ay u fog tahay boorama kala yimiday xagga ay barina u xigto qurco iyo ood weyne ayaa madasha fadhiya waxaad fadhideen muddo ku siman 4 saacadood annaga dartii aad u fadhideen taasi owgeed hadal badan oo halkan ka jeedin lahaa runtii dib baan uga noqonayaa aad baan idinku mahad celinaynaa aad baan idinka guddoomaynaa sharafta iyo karaamada iyo maamuusta aqoonta farxad bay noo tahay aniga iyo golaha deegaanka degmada Gabiley inaan maanta sagootino maayarkaygii ugu horreeyay golaha deegaanka oo u dalacay wasiir Shacayb Maxamed Muuse sharaf iyo qiimo noo tahay waxaan leenahay xilka ku asro barbarkiisaanu taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan ugu mahad celinaynaa waxuu mas'uul u noqday qaranka Soomaaliland gaar uma aha gobolka Gabiley xil baa saaran qaranka Soomaaliland u siman yahay gobolka Gabiley oo ku faani doonaa dhalinyarta reer Soomaaliland oo ku faani doonta ilaahay xilkaaga شرف ماموس يا كرامله أمور محل عيني يا كلها ديجان كين ديجان جميل كلها ديجان كان ديجان جميل وشل إلى ما يقولون في شرف يحترام يا كرامله يقول كرتي يقول ماموس يعني هو حدا هاني شيء إن اللوجان هو قبضه أنا سلكي شبحي برضو كين تاجر أدبر محل عيني وتاجر أصلا يصير شكرا دونا هذا كذا مان وحنا وريك دونا في كلها ديجان شيء دقمة دقمة مان توي تايلو فريل أنتك بس استحالة لو كل يوم يطلع وحنا وريك حلت الدنيا كلها ديجان شيء دقمة دقمة تلك عصام كل شيء دونا ولا شيء ولا تشي يوم ولا قبس ساموهم عينهم يمسك يوم يبينا شعب كانوا مسكين كانوا عين صندوق ومن عرفنا الله waxaan gaarsiin doonaa hami nololeed oo la mida ka sarreeya ka ay dhalinteenu dalalka ay dhalinteenu ku sii qulqulayso ay nafahooda u waayeen walaalayaal waxaan ballan qaadanaa annagoo la kaashanana ilaahay marka koowaad la kaashanana dadweynaha reer Soomaaliland iyo xukuumadooda la kaashanana dadweynaha reer Gabiley gobolka Gabiley kaashanana golaha deegaanka كاشنا داير فيها قوية إلى مكرب كرغالس سوينا أربعة بشكل يقول كتير. فبعيدها أقوال تنايا تربرنا يسا أموريستا فسد شقاوة حوارا بيبيليتا ومحسوسان كدرك بيرها لدام وقوم كيهاجم ومحسوسان بيبيليتا كان عسكرا بيبيليتا ورد بشنا ما بدأت شغالة يشغالها أموريستا حفرة شقاوة حوشين حريك العالم الدولة فبعيدها أول شغالها الدولة سويتها مشاريعها يلا قلتها يلي رأيتها مجالها سيقول نقطة مجالها عقوة الفيس بيبيليتا مالكشيا ونارك يفتح مجالها فبعيدها وحاشنا dadka naafada ka araga lahaadka iyo dhagaxa waxaan ka shaqayn doonaa balan qaadanaa inaan ka shaqeyno isku xirka iyo midnimada bulshada gobolka Gabiley maadaama Gabiley tahay magaalada cusub ee gobolka kale gobolka waxaan ka shaqayn doonaa inaan iskaashado degmooyinku ayna hirgeliyaan yoolka iyo hiigsiga u leeyahay gudaha gobolka waxaan ka shaqayn doonaa kana howlgeli doonaa annagoo kaashanana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland golaha sharci dejinta
aqoon-yahanada inaanu ka mira dhalino hami reer Gabiley ay soo habeeyeen intii dalka lagu jiray intii ka horeysayba oo ay gobolka Gabiley oo noqdo gobol ansaxa oo ka mid ah gobollada Soomaaliya. dardaaran iyo codsi aan ka codsado bulshada gobolka runtii waadalka seeno wixii halkaa dardaaran laga jeedinayay waad la socoteen aniga maanta runtii dareen iyo shucuurtayda awgeed wax badan oo halka ka odhan lahaa ayaanan u odhan karay sababtoo ah waad dareemayseen ammaantii halkan laga jeedinayay ismilihii waad mutaysatay waxaad dareemaysaan waan anigu dareensanahay muddo 10 sannadooda ayaan ku soo toosi jiro ku seexan jiray gobolka Gabiley wax ka qabashadiisa maanta wuxuu Ilaahay suura geliyay in halkii qodobada qabay aan gacanta ku dhigo runtii mas'uuliyadaasi waa dareemi karaysaa culayska ay leedahay warwarbay ku haysaa kuma faraxsanin runtii culays badan weeye kitaab baan ugu dhaaranay kitaab baan gacanta saarno shacabkaan u dhaaranay waxaan jecelahay inaad noogu ducaysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu garab gashaan waxaan idinka codsanaynaa inaydan gaara aydan noola iman waayo noogumaydin codayn inaynu dan gaara isku laaluushno ama isu siino waxaad noogu codayseen inaanu danta guud ka shaqayno sidaas si lamid ah ayaanu idinka codsanaynaa inaynu iskugu nimaadno isku barbargalno keliya danta waxaan runtii aad iyo aad ugu haweynahay inaad garab geli doontaan nala shaqayn doontaan aniga iyo golaha deegaanka degmada Gabiley annagoo isku duuban runtii waxaanu sharaf iyo karaamo u haynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu hore ula soo shaqayn jirnay wada shaqayn dhow la lahayn xukuumadda oo aad iyo aad u wanaagsan maantana waxaanu ballan qaadanaa wada shaqayntii naga dhaxaysay iyo wada shaqayn ka sii fiican inaanu kula shaqayn doono xukuumadda waxaanu ballan qaadanaa inaanu ku garabgeli doono higsiga iyo himilada gacanta ku hayso waxaanu intii awoodayada iyo intii karaankeegaaba xukuumadda ku barbar istaagi doonaa guud ahaan hirgelinta himilada iyo higsiga bulshada Somaliland ay gacanta ugu hayso inay ka miro dhaliso aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay maanta runtii madaxweynaha Somaliland waa dareemaysaan oo ururada ay soo ka mid tahay golaha sharci dejinta ka mid tahay isagoo kaashanaya fursadda uu dhalinyarta siiyo waa tu aanay dhalinyarta reer Somaliland ku noogi doonin haweenka fursadda siiyo waa tu aanay noogi doonin waa tu aanu mar walba niyad ku hayn doono waa tu aanu ka shaqayn doono maanta anaga dhalinyarahaan xil gaarana saaran madaxweynuhu hadduu suuro geliyeyna aanu mas-uuliyaddii dhalinyarta gacanta ku dhigno wuxuu xil naga saaray ilaalinta sharafta iyo karaamada dhalinyarta Somaliland waayo haddaanu xilalka ku fashilanno waxaa fashilmay dhalinyarta Somaliland haddaanu ku guulaysanana waxaa guulaysan dhalinyarta Somaliland aad baan idinku mahadcelinaynaa walaha deegaanka dhammaantood waxaan ku kalsoonahay inaynu wada shaqayn doono waxaan ku kalsoonahay inaynu gacmaha isku qabsanno dadka guud ee gobolka Gabiley waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta xilalka ay qaranka u hayeen uga yimiday sagootinta iyo soo dhaweynta labadayada mas-uul wasiir Shacayb Maxamed Muuse iyo aniga waa Maxamed Amiin Cumar ay u horeyso wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ah wasiirka ugu hawsha culus leh wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka wasaaradda shaqada warshadaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha isagoo shaqo aad iyo aad u culus qaranka u haya iyo dhammaan maayarada gobollada iyo degmooyinka dalka maayarka xigeenka Burco maayarka magaalada Berbera maayarka Booraba saaxiibka Cabdixakiim maayarka Wadweyne dhammaan bahweynta saxaafadda ee intii xaflad socotay taagnaayeen markuu fadhiisan ee u saran taagnaayeen xafladda iyo ahmiyaddeeda ay qaydiyaan faafiyana aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaanu idiin haynaa guul iyo sharaf iyo karaamo iyo gobonnimo aan duugoobin ilaahay haydi karaameeyo haydi ciseeyo haydi shaqo